kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada mar kale iyo warbixin gaar ah oo aynu ku eegayno waddanka Ethiopia oo xaaladiisu ay meel cagaaran marayso waa maalinimo Jimcaha taariikhdu ay ku beegan tahay 14 bisha Maaj sanadka 2025 haddaba waa sidee xaalka gobolka Tigray oo gabi ahaanba xarunta looga taliyo gobolkaasi ay la wareegeen dhaqdhaqaaqa TPLF iyadoo oo diriqi uu halkaasi uga baxsaday madaxweynihii ku meel gaarka ahaa ee gobolka Tigray ee uu soo magacaabay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Dr. Abiy Ahmed maalmihii ugu dambeeyay waxa dagaal xoogan oo qaybtood iska sahlanaa ay ciidamada TPLF kula wareegeen magaalooyin ka tirsan gobolka Tigray iyadoo ay ciidamada militariga ah ee dalkaasina meelaha qaar laga qabsaday xaaladda ayaa hadda u muuqata mid dagaal iyadoo oo madaxweynihii ku meel gaarka ah ee deegaankaasi uu u fagaday magaalada Addis Ababa dirqi ayuu garoonka maqalle ku gaaray maalinimadii shalay xilli ay ciidamada TPLF isku dayeen inay kharajiyaan Ethiopia imika waxay wajahaysaa xaalad hubanti la'aan ah oo mustaqbalkeeda iyo jiritaankeeda la xiriira waxaana gudaha dalka Ethiopia ka socda dagaaladii abid ugu khararnaa ee dhexmara ciidamada iyo xoogaga ka soo horjeeda